السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عيد مبارك دمان أمد الصوماليات قار أهان دديوغا كدقن gobolada koonfur galbeed Soomaaliya. Waxaan ku bishaareynaa hadaan nahay bahda Shabeellaha TV channel in aan idin bilaabi doono barnaamij taxana noqon doono hadduu Alle idmo. Barnaamijkaas oo ah mid aad idin xiiso gelin doono sida aan rajeynayno insha Allah taala. Waxaan kaga hadli doonaa barnaamijkaas degmooyinka sidoo kale tuulooyinka hoos yimaada degmooyinkaas. sida aad ogsoon tihiin deegaanada dhexda gobolka koonfur galbeed Soomaaliya waxay noqdeen kuwo muran aad u fara badan dhaliyay iyagoo ay soo baxayeen beela isku haysta hadba sida deegaanadaas loo kala dago balse waxaan idin xaqiijinaynaa insha Allah taala inaan barnaamijka inta u socdaan ku wareysan doono dadka asalka ah ee deganaa kuna dhashay ilaa iyo farac ka farac qarniyo iyo jiilal aad u fara badan. nasiib wanaag degmada aan ku bilaabi doono nasiibka u yeelatay inaan barnaamijkeena qaybtiisa kuwaad ku soo qaadano waxa ay noqotay degmada Bu'aale ee caasimadda gobolka Jubbada Dhexe. sidaan ogsoonahay Bu'aale waa deegaan hodan ku ah beeraha iyo dhaqashada xoolaha iyadoo leh daaqsin aad u baaxad weyn waxaana mara wabiga Jubba. barnaamijka inta uu socdo waxaan ku wareysan doonaa aqoonyahan ku dhashay degmada Bu'aale gaar ahaan xaafadda Horseed waa aqoonyahan Cabdulqaadir Buule oo ku dhaqan dalka Mareykanka gaar ahaan magaalada Seattle Washington. insha Allah taala waxaan idin kala dhex bixi doonaa Cabdulqaadir Buule oo warbixin kooban idinka siin doono degmada Bu'aale xaafadaha ay ka kooban tahay iyo tuulooyinka hoos yimaada iyo beelaha ku dhaqan deegaanadaas. aan idin kala dhex baxo idinka iyo Cabdulqaadir Buule. magaalo madaxda gobolka Jubbada Dhexe ee Bu'aale waxay ka kooban tahay 4 xaafadood. waagii dowladii kacaanka Siyaad Barre ay jirtay afartaasi xaafadood waxaa kala deganaa hal xaafad waxaa khaas u ahayd ay degnaayeen dadka digilka ah ee Dabare. xaafadaasi waxaa lagu magacaabaa Halgan. Dabare kaligiis baa deganaa. marka saddexda xaafadood kalena wada deganaa ha u badnaadaan dadka reer Shabeellada ah oo ajuuraanka ah iyo ajuuraan magaalada waa degnaayeen. xaafadda Horseed waa Beri iyo Qodaxley way saddexda kala xaafadood. marka dadka kale ogaadeenka hadda sheeganaya waxaa degnaan jiray 2 nin oo mid gulwada haystay iyo mid saldhiga haystay iyo odaygoo deerow la dhihi jiray islaanto intaas keli baa ka deganeed oo 2 bartire ay ahaayeen iyo mid cawlihan ah bes ah. waxa haddeer magaalada kusoo habsaday ma naqaana meelay jireen xilligaasi meelay ka imaadeen garan mayno. xilligaasi wax iyaga ah deganaa magaalada ma lahan laakiinse burburkii markuu dhacay kadib baa magaalada ay soo degeen. marka waa 4 xaafadood Halgan oo Dabare gooni u tahay iyo Horseed waa Beri iyo Qodaxley. saddexda xaafadood kalena waa isla wada deganaa. anaga waxaan degneen xaafadda Horseed baan deganaa aniga meesha lagu dhalay weeye. marka intaas way xaafadahooda. markaan fiirino inta meel ay digilka ka degaan laga soo bilaabo ilaa iyo Saakow ilaa iyo meeshii la dhihi jiray Dajuumo ilaa iyo Bu'aale ilaa iyo laga gaaray ilaa Muqdisho intaas oo dhanba digil baa degan. marka maanta waxaan rabaa inaan ka hadlo bes ah tuulooyinka ay degaan digilka ee Jubbada Dhexe ku yaala. magaalada Bu'aale markaa joogtid dhanka iyo Diisoor dhankeeda markii la aadayo tuulada ugu koowaad oo ugu shisheeyso dhanka Diisoor xigta waxaa la dhahaa Kurtun. tuulada xigta waxaa weeye Arabow. tan kala xigta waxaa weeye Kudiyaaq. tan kala xigta waxaa weeye Umbusaaley. waxaa xiga Sariira. tan kala xigta waxaa weeye Bu'aale. 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 tan kala xigta
iyo qurjaaquro mar loo yaqaano beled sokorey radiida bu-aala. markaas saasaad ku imaanaysaa. dhanka iyo jilib markii la aado, dhanka iyo jilib la aado, waxaa tuulada ka bilaabanaysa waxaa weeye dadkani ay degaan, digilka ay degaan, waxaa weeye duqyo, qararey, hungoole, buulo siidow, dhookaal, bidi, afgooye. afgooyada laba kala ah, mid waxaa weeye waxaa la dhahaa afgooye, midna waxaa weeye afgooye eelaay bay ku magacaaban tahay. tuulada kale waxaa weeye kaskey. tuulada kale waxaa weeye farbita. tuulada kale ku xigta waxaa weeye hurufle. tuulada kale ku xigta waxaa weeye shangani. tuulada ku xigta waxaa weeye manana. tuulada ku xigta waxaa weeye madoka. tuulada kale ku xigta waxaa weeye bulabaley. bulabaley waxaa ku xiga helishiid. helishiid waxaa ku xiga tarba. tarba waxaa ku xiga malende. malende waxaa ku xiga adomow ayaa ku xiga. waa intaasoo tuulo ah. waxaa weeye 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 waa 25 tuulo weeye. marka halkaasi waxaa kaloo dega qolooyinka la dhahaa juraanka. magaalada bu-aala waa degan yihiin. tuulooyinka qaarkooda oo la dhahaa sukele waa degan yihiin. buloguduud bay degan yihiin. magaalada bu-aalana way degan yihiin. marka intaasoo kale tuulooyinka ah waxaa degan digil. marka dadkani waa in ay dhulkooda bartaan, baaxadda dhulkooda uu leeyahay, iyo markii wax la qaybsanayo, maadaama dad badni iyo dhul wax lagu qaybsanayo, intaasoo tuulo ah dadkii lahaa waxaa la siiyey hal senator iyo hal baarlamaan oo maamul goboleedka lagu siiyey. marka taasi waxa oo dadkii canshuurta laga qaadaya haddaynan haysan representation, marka canshuursay ku dhiibayaan wey, ilan maba qof mathalaya meesha u jooga maba lahane. marka waxaa weeye dadkeena waa inay hurdada ka kacaan. arrintaani wax laga qabtaa insha allahu tacaala. waxaan rajada daawada inaad ka bogateen warbixin faa-iidadana aad ka hesheen warbixinta uu idin siiyey walaalkeen cabdiqaadir bulle. aada u mahadsan yahay. waxaan rajeynaa inaad wax badan aad ka faa-iideen. waxaan idinkugu darayaa oon kusoo koobina barnaamijkan degmada bu-aale waxay xarun u ahayd, saldhigna u ahayd saldaradii galay oo ka tala jirtay gobolada koonfur galbeed soomaaliya laga soo bilaabo qarnigii 14aad ilaa 1921. markaas oo saameyn uu ku yeeshay gumeystigii talyaaniga ah ee gobolada koonfurta soomaaliya qabsaday. saldaradii waxay ku lahayd saldhig ciidan halkaas ku lahayd oo ciidan u deganaa. waxay kaloo ku lahayd xero lagu barto diinta islaamka oo mawlac ah. waxaa u joogi jiray suldaan wakiil suldaanka uga ah deegaankaas. haddaba waxaan soo qaadan doonaa insha allahu tacala barnaamij kasii faahfaahsan ayaan mar kale uga hadli doonaa. una soo bandhigi doona insha allahu tacaala buugaagta taariikhda xilligii gumeystaha iyo ka hor taarikhyahanada ka hore. waxaan intaas kusoo koobnaa barnaamijkeena aan uga hadlaynay bu-aale. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.